بسم الله الرحمن الرحيم دمان سلامتين daawadayaasha iyo bahda aqoonyahan academy fadlan haddaan nagu cusub tahay nagu soo bir oo subscribe noo saar halkan maanta mawduuceenan waxaan uga hadlaynaa national ID-ga Ethiopia wuxuu noqday bahal shardi ah oo isku xidho oo baasaboorka iyo waxyaalo kale lagu xidhayo bankiga marka faana waxay soo dhigtay qoraalkan ayay soo dhigtay waxay kaga warramaysaa طبعا national ID-ga iyo waxyaalaha kale adeegyada dowladda haddii la rabo in la qaato in marka lagu xidho national ID marka halkan waxaa ku qoran qoraalka amxaariga waxa weeyaan sanad 24-keeda laga bilaabo magaalooyin kala duwan bangiyada laga helo magaalooyinka kala duwan waxaa shardi looga dhigayaa qofka hadduu rabo bankigaas inuu wax ka furto national ID-ga 24-ka waxa weeyaan sane 24 sane maalin baa naga xiga ama 2 maalin 25 bangiyada laga helo 25 magaalooyin 25 magaalo oo kililada ku yaala bankiga markuu qofku rabo inuu furto waxaa la siinayaa waxaa la rabaa in lagu xirayaa national ID ama faida digital mutawaqqiya iyo maqrab indhaqmi huneeta barawi iyo daragan waxaa la oranayaa waxaa shardi laga dhigi kan ma wadata haddaad wadatid waxaa la yiraahdo qabaleega haddaad aqoonsi kala wadatid waxa kale haddaad wadatid may waxaa maanta laga rabaa national ID-gaas wadati oo ah aqoonsiga qaran waxaana sidaas sheegay waa barnaamijka aqoonsiga qaranka Ethiopia saasha meel kasta waa laga furaya way ka dhiganta 25 xarumo oo kililada 25 degmo barnaamijka marka marka waxayaan marka ninka madaxa oo ah barnaamijka national ID-ga ayaa wuxuu sheegay bankiga Ethiopia shuruudaas ayuu soo saaray taasoo 23-keeda laga bilaabo 2017